weligaa ma maqashay odhaahda qofaad ka qaaday qiimihiisa ayaa ka weynaan kara taariikhdaada. haddaba si aad u fahanto waan kaaga sheekayn doonaa qiso gaaban ee keliya waxaan kaa codsanayaa wakhtigaaga. sannadii 1848 nin iyo xaaskiisa ayaa yimid jaamacadda Harvard, taasoo midda ugu faca weyn uguna sharafta badan Maraykanka, iyagoo doonayay inay la kulmaan madaxweynihii jaamacadda, balse ma aysan sii qabsan ballan hore. gabadha xoghaye ahayd ee meesha joogta ayaa ku tidhi wuu mashquulsan yahay, halka xaaska ay si kalsooni loogu jawaabtay waan sugaynaa. waxay fadhiisteen qolkii sugitaanka oo saacado dheer ayay joogeen, iyadoo xoghayaddu ay iska indhatirayso, rajaynaysana inay caajisaan oo iska tagaan. markii ay quusan waayeen waxaa lala kulansiiyey madaxweynihii jaamacadda, iyagoona u sheegay in wiilkoodu jaamacaddan dhigan jiray, laakiin sannad ka hor uu ku geeriyooday shil gaadhi, iyagoona ka codsaday inay jaamacaddan uga dhex sameeyaan xasuus lagu xasuusto. madaxweynihii ayaa fiiriyey labiskooda iyo muuqooda duugga wuxuuna si kibir loogu jawaabay, jaamacaddeenu ma dhisto taalooyin cid lagu xasuusto. odaygii ayaa si edban ugu jawaabay, si qaldan ayaad noo fahantay, ma rabno inaan taalo dhisno ee keliya waxaan rabnaa inaan dhismo jaamacadda ka dhisno kaasoo magacii wiilkayaga xambaarsan. madaxweynaha ayaa ku qoslay kuna yidhi ma ogtihiin inuu ku kacayo dhismo noocaasa lacag gaadhaysa $7 ilaa $8 milyan, taasoo cid kasta aysan awoodin. haweeneydii ayaa ninkeeda u jeesatay iyadoona ku tidhi hadday intaas ku kacayso in jaamacad la dhiso maxaynu dhis weynay jaamacad magacii wiilkeenna wadataa. kadib waxay u guureen gobolka California, halkaasay ka aasaaseen jaamacadda Stanford, mid ka mid ah jaamacadaha ugu magaca weyn dunida, kana mid 15 jaamacadood ee ugu fiican caalamka. ogow, kibirku wuxuu kaa hor istaagi karaa inaad aragto dahab ku jira qori madow. aan rajaynaa ka hifeen walaalkan Sakariya Maxamuud. aad ay mahadsantihiin saaxiibayaal.